Raxiim ku soo dhawaada cashar yar aan ugu talagalay inaan ka hadlo cashar yar aan ugu talagalay inaan uga hadlo waa maxay programming iyo waa maxay farqiga u dhexeeya coding iyo programming iyo kombiyuutaradu maxay sameyn karaan. Haddii aan ku hormaro programming waa marka kombiyuutarka aad u sheegaysid waxa uu sameynayo ama waxa adiga uu ku qabanayo ayaa waxaa la dhahaa programming. Qaabkii ugu sheegaysa marka kombiyuutarka siduu ayuuna kuu fahmaya. Kombiyuutaradu waxay leeyihiin luqad ay fahmi karaan. Luqadkaasna waxaa la yiraahdaa programming languages. Tusaale ahaan oo kale haddaan usoo qaato sida bini'aadanka kale maanta haddii aad ku hadasho af Soomaali aad la kulanto qof Chinese ku hadlaya isma fahmi karaysaan ilaa aad ka heshaan luqad adigu aad fahmayso asigana uu fahmayo. Kombiyuutaradana waa saas oo kale waxaad kula hadlaysaa luqad adigu aad baratay oo aad fahantay asigana uu fahmi karo. Luqad kombiyuutarka uu fahmi karo aad ayuu fara badan yihiin. Maalin kasta luqad cusub ayaana soo baxda. Qaabkaas kombiyuutarka kula hadlaysid waxaa la dhahaa programming waxaana u isticmaalaysaa luqad kombiyuutarka uu fahmi karo mid ka mid ah. Kombiyuutarka waxaa siinaysaa markaas awaamiro oo aad leedahay kan ii samee, kan ii soo daawa, kan igu soo celceli ilaa intaas aad ka gaarayso, kan ii samee haddii uu kan dhaco, haddii kale kan ii samee. Waxyaabahaas kombiyuutarka siinaysa awaamiradaas waa programming. Wax aad qoraysidna waxaa la dhahaa si fudud coding. Meeshaas wax kaaga soo baxay marka programming maxaa la dhahaa iyo waa maxay farqiga u dhexeeya coding. Kombiyuutarada awaamirada aad siinayso waxaa la dhahaa programming. Waxa aad qoraysana waa code ama source code. Sidoo kale kombiyuutaradu maxay sameyn karaan. Kombiyuutaradu waxyaabo fara badan ay sameyn karaan sida aad wada aragtaanba. Kombiyuutaradu waxyaabo ay sameyn karaan halkan laguma soo koobi karo. Laakiin haddii aan wax yar kombiyuutaradu waxay sameyn karaan si fudud waxyaabaha adiga aad u dirsato aad dhahdo sidaan iyo sidaan ii samee ay ku sameyn karaan. Waxaadna kula hadlaysaa sida aan hore u sheegay wax luqad ay fahmi karaan. Kombiyuutaradu sidoo kale waxay sameyn karaan in calculations aad u fara badan qofka bini'aadanka ah inuu xisaabiyo ay adag tahay waqti aad u fara badan oo ay ku qaadan karto. Sidoo kale kombiyuutaradu waxay ku sameyn karaan in data aad u tiro badan ay ku kaydiyaan. Sidoo kale kombiyuutaradu waxay sameyn karaan in shaqooyinka bini'aadanka ku qaadan qofka bini'aadanka ku qaadan lahayd intaas saacadood inay ku sameeyaan wax ka yar seconds. Sidoo kale kombiyuutaradku waxyaabaha ay sameyn karaan waxaa ka mid ah in waxyaabo graphics ah oo adigu kugu qaadanayso intaas saacadood intaas maalmood in ay si fudud kugu soo saaraan. Sidoo kale kombiyuutaradu data aad haysato analyze inaad ku sameyso intaas saacadood ama intaas maalmood ama intaas qofood ay ka shaqeyn lahaayeen inay kugu sameeyaan waqti aad u kooban. Marka kombiyuutaradu faa'iidooyinkoodii waxa ay sameyn karaan halkan laguma soo koobi karo. Meeshaas ayaan uga baxayaa. Waxaan rajeynayaa inaad maanta fahantay waa maxay farqiga u dhexeeya oo cashirkan ugu talagalay ah programming iyo coding iyo wax yar aan ka taataabtay kombiyuutaradu waxa ay sameyn karaan. Waa ku mahadsantahay dhegeysigaada. Intaan waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin.